Wow, what a beautiful day. Anyway, and waxaan cabayaa turmeric, lemon, ginger, I don't know. Bismillah, maalin wanaagsan walaalahay. Qof kasta waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Welcome to again Travel with Shego. Waxaan idin leenahay maanta waa maalin laga yaabay. My partner, walaalkay, walaashay, qofkiin kulligiin waa salaamantiin. Maanta waxay ga maqan gacantaydii midig carre saqiire aad mashquul yahay maanta wuxuu shaqo leeyahay. Marka waxaan rabaa inaan wax yar videogan ma dheera waa in yar oo kooban oo fiican dhagihiina fura. Maanta waxaan ka hadlayaa dadku markay yimaadaan wadankan waxay la kulmaan dhibaato badan. waxa iyagoon afki garanayn meel ay u baxaan meel ay qabtaan. Wadankan waa wadan aad u weyn. Systemkiisu wuu fiicay system buu leeyahay. Afka haddaad garanaynin waa dhibaato. Marka waxaan rabaa inaan idiin sheego maalinta soo degtid ee airportka ka soo degtid dadkii ku keenay amba dadkii ku soo sponsor gareeyay inay kugu sugaan airportka in laga soo qaado in meel lagu diyaar gareeyay aad degtid in lagu tuso sida waraaqaha loo sameeyo. Marka timaadid waxa bilaabmaysa in waraaqo kale kuwa aad ku timid mooyaane kuwa kale ayaa u baahan in la sameeyo halkan. markay haddii aanad garanaynin meeshad ku soo degtay dadka wadankan degani waa dad mashquul ah shaqo habeen iyo maalin shaqo ayaa loo ordaya because waxa ka mid tahay nolosha shaqadan loo ordaya waa in loo ordaa waa in la shaqaystaa. marka wax ku leeyahay maalinta soo degtid diyaaradaad ka soo degtid waa inuu aboowe amba abaayo amba habaryaro amba eedo amba abti amba adeero uu kugu suga airportka. waxaan ku leeyahay waxa loo baahay markaad soo degtid wax la yiraahdo inaad apply gareysid waa license-kii waa kaarka caafimaadka waa kaarkan aad wadanka ku joogaysid warqad ahaan baa lagu siinayaa. ka laftigiisa waxa ku oranayaan waxaan kugu soo diraynaa post. marka post markii lagu soo dirayo waa inaad address ku waano wax kasta way ka saxayaan airportka marka timaadid. marka warqada la soo dirayo waxa laga soo qaaday sawir Afrika. sawirkii ma anfacayo markaad wadanka timaadid wax la yiraahdo comparable ma noqonayo. marka waxa lagu oranayaa waxa lagu soo diray emailkaaga markasta la xiriir emailadiina ha bedelina hadda bedeshaan wax badan baa idin ka lumaya. marka emailkiina ayaa lagu soo diraya lagu oranayaa sawirka la soo qaado markiiba waa inaad sawirka la soo qaadtaa dirtaa 10 cisho gudaheed buu kaarku ku imanaya. haddaad diri weydo wuu ku dhaafayaa waxaad sugaysaa muddo. license haddaad tahay qof gaari wada waa inaad soo qaadataa license 2 sanadood inuu ahaado inaad tahay experience 2 sanadood. marka 2 sanadood baad keenaysaa waxaad galaysaa wax la yiraahdo imtixaan theory oo qoritaanka ah. haddaad rabtidna waxaad raadsanaysaa wax ku turjubaana oo kula gala. laakiin ingiriisda markasta barta waa idin baryayaa ingiriisda barta way idin anfacaysaa. wadankan hooyay aabba ma ku joogaan af waa inaad taqaana. marka kaarkaas ahna waad qaadanaysaa license-ka imtixaankaad galaysaa markaasaa lagu soo dirayaa markasta meelkaaga eeg. marka waxaad tagaysaa meesha caafimaadka kaarka caafimaadkaad samaysanaysaa. kaar kale oo 9 number ah oo 9ka number waa muhiim. 9ka number waa noloshaada Canada. markastoo 9ka number la geliyo waa lagu soo helayaa yaa tahay markiiba waa lagu soo helayaa. waxa ku xigta banki oo lagu furayo information kaaga soo dhanna adiga kugu koobnaadaan khaasatan bankiyadaada iyo numberka 9ka laana hadii laga xado way ku dhaaftay. qof kale guri ku iibsan kara lacag ku samaysan kara aad numberkaasi aad iyo aad inaad u xiftidid oo wadnaaga ku dhaweysid weeyaan. waxaan oran lahaa travel with Shego masawiradan ha iloobina ma sometimes adada masawira lagu soo diraa masarkaaga hore qalad waaye. waa kan hadda ka hadlayay waa aniga u sheegay kaas waa very important waxa important emailka important ah because information ka dhan waxa lagu soo diraa emailka. walaalahay mar kale waxa idin leeyahay iyo how you know sorry I know ina way dhameysha kada laakiin also inay goostaan kaarka baska lagu fuulo baska lagu raaco information ko dhan wuxuu ku jiraa telefoonka waxa keenay horta waxa soo dhamanada bas gaari kan raac English khafnaha barina intii ii sameeyo. my brothers and my sisters learn English barta Ingiriisi. marka la waxa idin leeyahay travel with Shego. Today I know kaligay laakiin maalinta waa very beautiful. I'm gonna go ahead and enjoy it.
waxaan filayaa idinkana waxaan rabaa inaa enjoy garaysaan mar horena waa idinla hadlay idinmaanu ilaabin arrintu way socotaa laakiin iyo taxiga also inay iloobin in taxiga la xareeyo soo dhawaada waa markay waddanka yimaadaan waxaasoo dhan haddaa information waxaan rabaa dadka imanaya xataa lagu keeno sponsorka 5 groupka if haddaa aragtaan my information waxaan ahay anigu ambassadorka inta jooga oo idin caawin kara waxaasoo dhan waxaan leeyahay mar kale travel with Chego soo dhawaada anaga waxaan u sameynaynaa communitygayga qolkii waxaad helaysaa 80 fiican 20 iska hadlaya waxba maaha 20 ka laftigooda waa idin jeclahay soo dhawaada travel with Chego waan idin jeclahay soo dhawaada mar kale soo dhawaada bye wariyaa waxaan iga raalaha waxaan ilaabay next week waxay noqonaysaa gaadhiga kuwaad ku hamadoon jirteed jeclayn saad u iibsan lahayd inaan ku tusno waxaad u baahan tahay inaad license haysatid ad bangina furatid newcomers waa dadka cusub ee yimaada waddankan kaas laftigiisa waan samaynaa waan idinka caawin karnaa waxaan leeyahay walaalahay gaadhigaad ku hamiyeysay anything it's possible means wax kastaa way suuro geli karaysaa waddankan gaadhiaad sheegaysaa guri baa iibsan kartaan idinkeed ku xidhan tahay kartidiina saa u shaqaysanaysiin saa wuxuu samaynaysiin naga faa'iidaysta walaalahay mar kale bye